يوتيوب كسر يوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا مركز تاجرتان ولا لها كحرم بيش كيجا حمتك الكعب. إني صوق لبا معها. واي إناد يوتيوب كيجا سيسان. ماشي رتبتك كسية عسان كمان تبليك لايك أنا دق شير تدع. محا إني تدي إنا برتق دق كسيسان. سوى يوتيوب كيجا عقورن. حمتك الكعب حمدي هلجن. حل مجا عن ستا فيسبوك سناب شات تيك توك وحكس طبع. إنتنا كاستعماله براه بشدة. عبنا إني سلام يا ولا لها كحرم بيش كيجا حمتك الكعب. كون ayaa ku xiran wali boqolkii kun maynan gaarin xitaa facebooka wuxuu furan yahay dhawaadogtiin waa wax yar wayna salaamaya dhamaantiin ba soo dhawaada kaliya laab war degdeg aan inii hayna warkaas degdeg ah oo waxa weeye maanta ma garanaysaa beeshii dhulbahantiye beeshii madhibaan oo madaxa is sudhay digta la isku hayo dagaalku bacda hayo ayaan inii hayna share gareeyna ala shaydan ku yaale share gareey iPhone ko fadna xaar weeyaan telefoonada iPhone ka Samsung FIFA Samsung bandi bugu noqonay Samsung ka xadin jiro ya botter ka war indhaha soo sameysay
intaas waa kaftan insha Allah idin salaamaya meel kasta aad joogtaan rag iyo dumar cid macaayayo cidna uma gafayo laakiin sidii xaqiiqdii runta tahan inii sheegay insha Allah beelweynta dhulbahante iyo beelweynta badhibaan laba jiifo oo kamid ah ayaa istagaalay 2008 hadaan khaldanayn mise 2007 dhamaadkeeda ayaa beesha madhibaan beel jifi kamid ah oo la dhaho beesha Saciid Kuul beesha Saciid Kuul marka aan dhaho badhibaan aad buu u badan yahay odaygii maxamed gargaarto wuxuu dhalay sheekh madhibana wuxuu dhalay maxamed iyo maxaad bare maxamedku waxa weeye 8 jifo maxaad baruhuna waa 3 jifo jifi kamid ah marka maxaad barihii oo Saciid Kuul la dhaho aniga ciyaalkayga ayaa ah hooyaday macaana way tahay naaskoodan shaqay naaskaygana way shaqeen maxaad bare kan soo gudbo Saciid Kuul beel marka madhibaankii kamid ah aba maxaad barihii kamid ah oo Saciid Kuul la dhaho iyo beel kamid ah beeshii dhulbahante hadda magacoodu waaban haye magacoodu waaban laqay waa beel adigu buuhoodlii aagaasi degtaa labada bilood ba aad maanta isku dhacay ma garanaysa xaaladuna meel xun ka maraysaa xilliyadii adigu 2017 ayaa Somaliland ba waxay bixisay dhul waxay siisay madhibaan wadad aad u badan beesha la dhaho maxaad bare ee Sacad beesha Sacad ayaa waxay siisay dhul san taariikhda ku hayo beesha madhibaan ee maxamedna waxay siisay dhul Somaliland fifa Somaliland calankiisina xagga dambe ku xidhaysan 10 euro ka sabixi 10 euro san gurigayga ku xidho haba guriga gudihiisa igu xidhaa soo furta cawd daaqadayda ayaan imid fadhigayga ma ila socota beesha reer Somaliland amba isaaq amba habar jeclo wala si kala sarsareeyaa dhulkaasay bixisay beesha maxamed waliba Umar maxamed iyo beesha maxaad bare ee Sacad ayaa dhul siisay dhulka magaciisa waxa la dhahaa Daarasalaam hadaan khaldanahay iga raali noqdo madhibaankayga Daarasalaam iyo waxa la dhahaa Galooley waan binaysanay ilaa 2017 ilaa ma hadda binaa barta binooyin baa laga sameeyay riigig baa laga qoday ceelal baa laga qoday barkada laga qoday ma garanaysaa wixii qurba joog ahaa daaray ka dhisteen meeshii inta waxba haysan sandaqaday ka dhisteen iyo buushash ma sha Allah iskuula laga dhisay majaajida laga dhisay magaalooyinka way dhismeen magaalo kasta arkay sidoo caasimad ah amba ha noqoto Muqdisho amba ha noqoto Hargeysa amba ha noqoto Garowe amba Jabuuti ha noqoto amba Gaarisa ha noqoto amba Jigjiga ha noqoto waxay ka soo bilaabmataa waa tuulooyinka yar bay hadda labada walaalaha ah labada wiil walaalaha ay degan yihiin hadda beesha markaas Saciid Kuul oo iyaguna madhibaanka kamid ah ba waxa ay sameeyeen ila dadka dhulka waan u deganay marka dhulka aan ku leenahay Somaliland baa bixisay ma aha dhul anaga aan duulimaad ku soo qaadnay laakiin dadkii oo degan ayaa waxay ka codsadeen dawladda Somaliland amba shacabkii meesha la deganaa in ay dhulkaas ay waligoodba la deganaayeen calanka ay ku hoos dhasheen inay dhulkaas kaligood meel gooni iyaga u ah inay ka dhaxelaan oo iyaga haday wax soo dilaan amba wax soo dhibaateeyaan amba ay wax soo geystaan nin waliba wuxuu leeyahay meel xaska dabada la galee inuu helo meel usugu tulkii kaliya ku jiraan ay ka arrimiyaan oo xaska gashan karayo sidoo runtii aan Soomaaliyeed dad istilaanu nahay sida badankii wada ogtiin Somaliland way ka ogolaatay waxay tii dhulka cid inaga xigta habeeraatee ma jirto dhulka inigaas iska leh inigaana deegi karaya horena waa u deegnayd waliba beesha habar jeclaha u badnaatay dadkii meesha markaa deganaa sidii baa loogu saxeexay dhulkii riigig iyo barkadaha iyo wax kastaba looga qoday loo bineeyay waa beesha maxaad bare iyo beesha Umar maxamed oo kamid ah beesha madhibaan beesha Saciid Kuul baa waxay sameysay buuhoodle qayb marka Somaliland marka leeyahay buuhoodle wixii sidan ka soo xigan weeyaan Somaliland buuhoodle waad ogtihiin afar dawladood baa fadhiya intaan khaldanayn mise waa 3 waa Khaatumo waa Somaliland waa Puntland waa Ethiopia buuhoodle magaalada buuhoodle caasimada ah saad ogtihiin ba afar dawladood baa fadhiya sidaad ogtihiin ba Soomaaliya waa Ethiopiankii dacal buu ka haystaa magaalada Somaliland dacal bay magaalada ka haysataa maxaa la dhahay Puntland dacal bay magaalada ka haysataa Khaatumo dacal bay magaalada ka haysataa waa afar taaqo jabhadaana hadda ka dilaacay
afartaa marka qole meesha ku haystay meesha Somaliland xukumaysay oo xalka waliba soo xigta burco ayaa reerkaas loo madax baneeyay mar hore 2017 ilaa hadda ay degan yihiin shirarkana ku qabsadaan ma sha Allah ma yiriyaga ka ah xildhibaanayaga ka ah ayaga isku doorta ayaga mas'uulka ayaga ismaamula hadday cid iska dilaan stationadii bay leeyihiin wax kastay leeyihiin riigig bay ka qoteen qurba joogtoodii baa meesha maal gelisay hudheelay leeyihiin waxay ku taalaa halbowlaha marka lagu socdo ma garanaysaa lascaanood laga tago oo boosaasiyo dhul lagu socdo waa laami baa mara agtooda sidaa daraadeed gaariga halka ka yimaadana wuu istaagaa gaariga xagga ka yimaadana wuu istaagaa waa halbowle meeshaas saasay dadkaas ugu deganayeen marka beeshii kale ee maxaad bare ee Siciid Kuul oo waliba beesha aniga aan caruurtaydu tahay hooyadii macaan ay ka soo jeedo weeyaan reebtiyaashay barkii waxay sameysteen iyaguna dhul baahantay maadaama dhulka isla deganahay qaybtan inigu ay nimika inila deganahay ka awow ya ka isir aan wada deganayn calankuna inaga dhaxeeyo dhulka hadaan degna ka warma annaga khaas ahaan ila waligeen iyo alihi bayniga was dhex deganay bal meel annaga gaar ahaan jifideeda han u baxno sida walaalahay kalba ay sameeyeen ay reegaas u saayeen okay bideen waan ogolnahay baxa way bixeen marka maxaa qaabadii halka ogtihiin aan boqof bilaabaan bal boqol qof ay ku bilaabeen boqol dhalinyaro ah oo wiilasha Siciid Kuul ah soddon baabuur bay wateen meeshii bay ooteen meeshii bay degeen binooyin bay ka qoteen binooyin markaan leeyahay waad dareemi kartaan Soomaaliya hadii la joogo aan bareebaadiyo dadku gurgurayaan roobada ah barkadaha buuxiya binadii bay ka qoteen meeshii mar allaaliya mar adduunyada sheekadii gargaartaha ahayd barihii bulshada soo gashay telefishinadii laga daawaday adigu 3 wiig ka hor bil ma gaadho ayaa loo tagay ragii goor barqaal la weeraray waxa dhulka waxaad ka dhigaysaan dhil hawiyaati adeer ninkii maxaa la dhahaa ninkii Allah ha u naxariistee maxaa la dhahaa isoo qabo madaxweynihii Puntland dhisay oo isoo qabta dinac la shidan ku yaal Cabdilaahi Yuusuf wuxuu yiri laba waan kala ilaaliyaa hawiyo ma dhibaan waan kala ilaaliyaa nin siyaasi yahay ninkaas hawiyo ma dhibaan waan kala ilaaliyaa wiiri ka dambeeyo kala ilaali waa dad wada dhasho anigu waan kala eriyaa wiiri kala eri marka dhul bahante uu kala ilaalinayay labada nin oo walaalaha ah sidii runtii ah wuxuu yiri birintala dhulkan dhul waxaad ka dhigaysaa hawiye ma ogoli dhulkayga iga kac dhulku waan kula dhashay wiir dhulku waan kula leeyahay waan ku dhasho cunteeda ku aasan ka awowna waan deganaa kamana kacayo halkii baa la isku laayay halkii markii la isku adigu wiil baa naga dhaawacmay halkii beeshii ma dhibaan ahayd hal wiil naga dhaacay ma dhibaan oo dhanna maaha ma dhibaan waa dad aad u badan dadku imika tiradooda waxa lagu sheegaa inay 2 milyan yihiin 5 milyan iyo 6 milyan waan dhaafi lahayn laakiin annaga ma dhibaan sidii runtii ah daraawiishtiba aad u leysay hoobiyi xamar ka soo dhacayna oo ma garanaysaa siyaad baratuurayna waa naga laay ragayga wada lama kala saareen reerka laakiin maxaa la dhahaa khaasatan maadaama daraawiishiya aan la deganayn reerka markaas aad loo xasuuqa ilaa 3 milyan waa naga dilay wax kala garan mayna dil lagaga shakeeyo hooyada saa inta caloosha midida looga galiyo baa jaf ayaa ilmihiyo qoslayo ooyay banaanka soo dhacay baa soo hooyada dhimata ilmaha gurguuranayo hooyadii laga bireeyay inta soo gurguurta naaska afka xalimeed ah u shaqeeya mileen mise walaadi taariikhda lagaga sheekeeyo dhul baan kuma caayo dad ila dhashatiin awooyaashin hore khalad galay awooyaashin hore way waxaan ka sheekeynay aniga ma ila dhageysta ayadoo iska day wadaad baan subhanallah alxamdulillah waa ka soconaya hawsheeda marka adigu arintii sidiiba meeshii waxa ka soo baxay adigu inan baana lagaga dhaawacay reerkii meeshii waa lagu qabsaday barkadihii waa laga magaranaysaa binadaha ahay ka qoteen waa laga ciideeyay cashan ciidii baa dib loogu celiyay hantidii bartii adigu way ka soo rarteen iska soo guureen qaybtii waxay dhaheen han aadno Somaliland qaybtii markii horeba Somaliland labadeeni jifo ay walaalaheen ahaaba la siiyay han aadno reerkaas aan nasabay reerka han u tagnibaan markay halkii reerkii soo aadeen ayaa waxa ka daba yimid dadkii marka magaalada deganaa ilaa magaalada qabiil kasta wuxuu leeyahay uqaal salaadiin ugaasiyo cid buu leeyahay beeshii dhul bahanta dadkii marka aqliga saaxiibka u ahay dadka wanaagsanaa wadayaasha magaaladii ku kacay waxa waa khaldantihiin ina saad reerka loo gala maaha reerku waa reer nala dhashay reerku waa reer Soomaaliyeed waliba waa reer ka sameynaya waa reerku ma dhibaan dhalay reer kamid ah dhul bahantaha
beesha madhibaan baa dhashay alas ogyaha buuhodliya aagaagaadh yarebaadiya kabacdi halkii waxaa la sameeyey waa reerka annagana horaan u dhalna bay dheheen iyaguna wayna dhaleene bal reerka hala soo dhaweeyo reerka hala daayo baa leh odayaashii adiga buuhoodle oo adigu sheekadii hadda idinku soo daaline waa loo yimid odayaashii waa la xaal mariyey soo dhawaada meeshaaba iska badaayo meeshan kale banaysta baa leh meeshan kale banaysta baa leh adeerayaan meela socotaan si fiican la soco meeshii kale la siiyay isla buuhoodladiya isla baadiyaheediya isla meel cidla ah waa meel cidla cirsla oo cid deganayn oo cidla ciid hadab eeg marka baabuurta raacisid baadiyahaad aadaysid waxaad dareemi karaysaa dhul ballaaran baad arkaysaa oo cidla iska oo cid deganayn waa meesha cidlada hamoodin magaalada dhexdeedii meeshana lagu haysto waa meel cidla oo dhirta inamada intay guduma qaateen dhirta safaynayaan dhirta ka gurayaan wadooyin bixinayaan gacmo bixinayaan alaashan imika la binaynaya camal فهمت marka muhiimadu waxay tahay qofan iska bloogaya waxay isuga aan buufiyaa xiliyadan kale marka la gaaro waa iska buufiyaa waa imika Facebook wuxuu keenay qofka blog ma saari kartid hadii oo inta leef ku jirta hada saar weey haduu ma saari kartid la soco marka waa iska buufiyaa marka ala kulli xaal waxa la yiri bartan iska daga waa in lagu khaldamay sidan weeyaan walaalaha ayaa tihiin waayo wuxuu og yahay dhulbahanta inuu madhibaan ka maarmin kama maarmi karayo madhibaan waa dad farsamo yaqaan ah waa dad ilaahay xafrad siiyay waa dad meesha deegaanba ma sha Allah lagu yahay waxa la yiri kama guur kartaan hasla degno walaalayaal kale waa kano dhulkii baa siiyay dhulkiiba hadana markii dawo dhulkooda hooyo ay ku dhasheen calankan khaatumo rag ba adeer kal shaaliye khaatumo rag baa naga dhintay sawaay Somaliland iyo xilliga SNMT iyo xilligii magarsha faqasho sireen rag baa naga dhintay war Soomaaliya halkankeed rag baa naga dhintay annaga meel kasta Soomaali joogto waa dhex deganaa ragaha raamaha leh oo maxaa la dhahaayay ogaadeen rag raamaha la darkasi rag madhibaana ku jira oo raamaha la yeesho oo naclif ah alaashan dhulka waa halgamayaan laakiin waxba kama tiid weeyaan waxaasna wuxuu ahaa waa xafki iyo midgaanimadii waxa laga tag saaxiinaagta naaglaandheero فورا ويانا هوية شفكة قراعنس كحمر جوجا والله لو دي بيا والله هدا والله بو هذا دتك كدبتid كحمر جوجا laga jaray la soco aku si soconaya karbashkii xogaan xamar karbaashii reerkan ka qafiifinaya marka ala kulli xaal waxa dhacday meeshii baa lidega meeshii bay iska degeen barkadii bay ka qoteen sandaqaday ka dhisteen wali daara lagama dhisin waa hadda isla 3 week ka hor weeyaan la soco sandaqaday ka dhisteen buushashbay ka dhisteen reerihii baa soo guuray kuwii magaalada joogay kuwii baadiyaha joogay isku yimaadeen xoogaa saaka la soo weeraray no saaka markii la soo weeraray 5 nin oo ugu waaweynaa meesha markaa joogay oo aadan tarabi ninkii yaqaana geesiyada madhibaan weeyaan la tiriyo aadan tarabi kow ka yahay ayaa la kaxaystay 5 nin markii la kaxaystay waxa laga xitaa waa la dhaafay buuhoodliyo wirwir dhul baa laga tuura 5 nin waayo rag madhibaan runta marka inii sheego waa la yaqaanaa dhul bahanta iyo madhibaan way yaqaanaa adeer ninkii dhul bahanta gabyaaga ahaa maxaa dhahaa samatar baxnaan iyo jibriil mire way yaqaanaan gabayadooda iyo xiliyadii halganiyada waa la yaqaanaa dadkan nin madhibaan asagoo saa u soo jeeda xabad wajiga laga gamdhafanayo in dhabarka laga toogto mooyaan على كل حال halkii baa waxa ka dhacay weerar dadkii iska baraadla waa meel iniliisiye waa meel iniliyo ogolyahay waa meel odayaashii magaaladii dadkii inii ogol yihiin baa la yiri fadhiista balwakaas oo la fadhiisto hab iyo kale arago saakun baa la soo weeraray 5 nin oo nimanka madhibaan ugu weynaa odayaashii gadhka lahaa ugu weynaa meesha talinayay 5 nin bagaara lagu ritay sandaqadii iyo buushashkii waxa lagu guray isku rogooyin barkadihii meesha ay ka qoteen waa laga aasa sidii baa meeshii waxa marka hadna meeshii waxa la keenay weerar ciidan dhan baa lagu soo weeraray waliba ciidanka waxa kamid ahaa sida la sheegayo man hubo ciidan calanka Somaliland kulli bisan ayaa kamid ahaa baliir oo dhul bahanta ahaana laakiin qabiil ahaan u socday bali laakiin ku jira bali askartan man hubo anigu taas waan ka sii afar digay wasad warku igu soo gaaray halkii baa waxa la sameeyay hubkii hoobiyaashii ila ma siyaad bare ila ma aduun ila mahbud leekii yaalay inta la soo qaatay ayaa xabadihii dam talagu haya meeshii awood uma laha inay sujuudda ka dhuftaan
amba inay toogtaan ay baasa u mariyaan waa dad ma garanaysaa weliba maaha ma dhibaan oo dhan maaha maxaad bar oo dhan waa hal jifo sicid la dhaho waxay is hayaan waa hal jifo ma dhibaan waa 11 oday waa odayga 11 tobankii kale xakan bujug ay sicilin kar laayeen hubka toos ugu maridayaan halka sare ka marinayaan wiif aga sare ka maraysa waayo soo jeedkayga cid xabad ku dhufan kartaa ma jirtaan oo sii jeesta mooyaan waxay arintii qoraxdii baa soo dhacday haddana maqribkii markay ahayd baragii maxay sameeyeen ma dhibaan ee sicid kulla maxay sameeyeen laba gaari oo buuxa oo dhulbahanta leeyahay oo wadada maraya dee la wahal bowlihii wadadii meeshii la marayay ayaguna ku soo dhigeen labadii baabuur bay iyaguna soo afduubteen xeryahoodii meesha u badnaayeen bay ku qabsadeen ila waa la wada degaa wadanka waa la iswada ogyahay meesha iyagu ku badan yihiin ayagu atuuraha ka yihiin isla buuhoodada dhexdeeda bay ku qabsadeen laba baabuur oo cid kastaba saarantay wala shacab wala cid wala fatuush loo waxa loo kala eegayo male iyaguna waa ku dhigeen laba baabuur bay ku dhigeen telefoonada hadda socda arintana berri baa loo balansan yahay buuhoodoo dhan baa makarasa iyo Soomaalidii dadkii deganeed oo dhan baa berri ku dhex jirta qaybta Somaliland qaybta dhulbahante amba budle maxaa la dhahaa qaatumo qaybta Puntland kuwa Etoobiyaanka inba meeshii tagto telefoonada socda waxa la soo daayay labada baabuur iyo shacabka saaran waxay dhaheen ma soo daynayno jeera annagana shanteeda nin baa labada baabuur u dhimo adan hore oo sheegay ninka ma dhibaanka ah iyo 100 nin oo Soomaalida kala ninka ma dhibaanka ka qaalisan saaxiib sheeka kaasi nigu istishaan isberbereysaan iskusataan rag la taaban karayaan ba loo gali karaya ma laba baabuur bay imka reerkii ma dhibaanka ahaa afduubteen oo haystaan marka waxa weeye adeer qaniya ka fujise war dhul bahante inigoo dhan ma ahay waa reer hagarna mu ahayna sorry iga raali noqdo wallahi waa soo ilaa waa soo xafiday reer hagarna mu ahay sorry maxaa la dhahaa waa reerka buuhood lay degaan reerahan way kala degdegaan ma ogtihiin dhulbahanto la isku ma dhaho qaar la saanood bay degaan qaar buuhood leh qaar ma garanaysaa qaarba meel bay degaan marka saasay arintu ku dhamaatay warkan habeen dambe bahmeyga ku xigay in soo siin doona ninka isagoo soo jeeda xabad wajiga laga gama dhufan karayo xagga sare bay bamta ku hayeen taa kuwii kale xagga inta ka wareegan bay laba baabuur soo qabsadeen ee qaniya ka fujisay aniga labada baabuur dadka saareen hadilina codkay waan maqleen waan ismaqalnay dadkaas cashan dadkii haystay shacabkayga dadkayga cidna hadilina cidna ha dhibaataynina laba baabuur oo dhan xagaad jigtaan qor cashada xaga casho uga keentaan ugu karin kartaan laba baabuur dadka saaran raashinkeed way naga marinayaan مسعولات وقشين على كل حال هتعاوننا هندلنا لكن واحد سمعنا أدر مذبح لو فرطان ولي جدي قال له هدبا مراكب هو ذا مرة سنة اللقب صدق طب لا هذا صوت دايك واس لسه في المدى كده وينشرنا مركا وحلين هاي أدر وكواسي هلا سيد دايو مركا أبا يني سلام إذا شيء كذي يورك وكاد حد سجسان نحن بقول قف دعوانا سورك وإنتاس أنا ما عيت ما يرد بهانتا وادن دلار شيء وادن شرف له وادن ولا لها إلهي لبضع بيلود إسلامي إلهي هكال قبوتشيو المحل هو بيل دبهانتها كميد يا بيل مدبان كميد هذه دبهانتي يوم مدبان ودن أي نقطنا نوح جامع السياد بوها طلع جامع السياد ماي جامع السياد ماها ورئيس قرقرة عن مقع ريرك عن ريرك ساعة رئيس قرقرة جامع سياد مهينة بركت يس وبركت خير الله كسيو أبتي أقول دفعة أتكتر تصو بركت ويان وريرك بركت لده يا ريرك سعيد كول لده والله بتشوفيه إسلام هوب لأج إسلام قبيل لأج إسلام قرط دد وده دجنا ولي جودي الله الناس ويقاني إن اللي أبتيجي بس كوهبا مركب بركت يا سعيد كول بوتاله هدي هوش أي دبهان ترى نقطة مدبان ولا بين قناس فهميسا مركا وكاس طب مش هذا إنه ليه ما ينقرقار توصيا عاي خوب نصياي حبض نصياي قال يا عند قال لنا ليه ما إنه ما فهميسان لكن وحوان سكيلين كرينا رجع مدبان رجلا تتعبان كريا ما والله بالله طلع تذكر كدي كول ما شفتوا عيد ما طابتان عيدنا ما تضونتان عيدنا ما جرسا ما دندانسدان لكن ما أنت لا دندانسدا أودران كنت مركا إني شيء والله ما أنت سال الله ضربتي لا دندانسدا أودران دكت لا دري هذا بدلين وان كلا لين وسومالي لا وان كلا لين وقل مدوق وان كلا لين وعمر وان كلا لين وسومالي توبي ملكستان دقنا وان كلا لين قصب يسندل أنا كنت جينا ولي بقى على شيء تنكو يلا كأنك قد عنك سومال لا صانو قول المرين ده وكان واحدا يعني كي حاو ورهب إني سلام يا وبهت سنتين
haddii afkayga wax ka khalada kasoo baxay ka raali noqda de boqorada xoogaha yara hore cayda waa iska daysay baryahan astaghfirullah alxamdulilah allahu akbar waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jannada inoo balana insha allah labada reerna ilaahay kala qaboojiyo guuliyo gobonimada inoo rajeynaya meel kasta aad joogtaan waa jifida barkadka ah iyo jifida sicudkuulka ah waa laba reer oo isla eg waa laba reer oo siman waa laba reer oo laandheero banaanka degay ya midna daarood yahay midna hawiye yahay wallahi bilaad wala saxasbuqay adii wax kale la fahmi waaye ana salaam insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cafis iyo musaamax